barakaatu iska warama Soomaaliyeed meel baa joogtaan waxaan rajeynayaa inaad saad u dhantihiin aad nabad tihiin biidnillah casharadan digital marketing ah ama suuqa online ka ah baa inoo socda inagoo waxaan ka bilaabanaynaa kow ilaa aan dukaamo furano ama saan u kala ogaano heerarka ay marayso oo dhan waxaan soo gaarnay market research ama baarista ama cilmi baarista suuqa leeno suuq liskama galo adoo wax ka ogeyn research cilmi baaristu waa essential waa lama huraan component waa qayb lama huraan ah of digital marketing strategy kaasoo ah online ka xeeladiisa mid muhiimka ah empowering awood siinaya businesska tijaarada ama ganacsiga to gain inaad ka faa'iidid a deep wax qoto dheer deep understanding faham qoto dheer of their target audience kaasoo bartilmaameynaya macaamiishaada baaris maxaynu niri waa lama huraan qayb ka ah xeelada taasoo ku siinaysa awood inaad baayac mushtarkaaga uga faa'iido si qoto dheer adoo fahamsan bartilmaameedka macaamiishaada database oo ah xog baaris waa systematic waa nidaam to approach kaasoo habeynaya and get to the gathering ururinayana consideration oo ah xoojinta and processing iyo farsamaynta of the consumer macaamiisha data xogta ah data maxaa looga baahan yahay macmiilkaaga waa inaad ogaataa hadda maalan kulligan waxaan wada haysanaa telefoonno marka aad maanta wax baartid maanta kaleeto waxaad baaraysaa dawo kala baaraysaa beri dawo kala baaraysaa saa dambe waxaa ku imanaya xayeysiis oo ah dawooyin kaleeto say kuga ogaadeen nidaamka AI oo telefoonka ku jira baa arkayay maalin iyo labadii u dambeysay inaad dawooyin baaraysay markaasuu wuxuu samaysanayaa ama uu qoranayaa inaad adigu ka hesho dawooyinka ama dawo aad doonaysid markaas wuxuu ku tusayaa dawooyin cusub meelaha laga helo inta ay yihiin dawada kuugu dhow marka database ama xog baarista waa sidaas waa nidaam habaysan adigoo urursanaya xoojinta ama farsamaynta xogta ama warka macaamiishaada leeno adiga shaqadaadi waa macmiilkii vision oo ah aragtidaada waa is to be aired midda dhulka most inta badan consumer macaamiilkaaga centric ah waa tan ugu muhiimsan visionka uu qofka leeyahay ama aad ka leedahay ganacsigaas kaasoo ah customer centric macmiilka dhexe where customer to find meesha aad ka ogaanayso ama aad ka helaysid macmiilkaaga anything they might want kaasoo kuwa awood siinaya wax walba oo ay doonayaan inay iibsadaan taasoo aan nafsi tusaalihii aan soo qaadanay baaristii aad dawadii baartay ama aad makeup baartay ama aad boorsooyin baartay ama aad kaba baartay 2-3 casho isku xigta ama maalintiiba mar ka badan waxay ku soo saaraysaa ama ay siinaysaa nidaamka AI inaad tahay qof waxaan ka hela ama waxaan baaranaya marka wuxuu ku soo siinayaa kabahaas oo kale ama boorsooyinkaas ama makeupkaas ama dawadaas aad baaraysid meelaha ay yaalaan presyada ay yihiin inta nooc ay yihiin meelaha laga leena marka isagu wuxuu halkan ka ogaaday dhowr kamaraad baartay inaad waxyaalahaas ka heshid marka maxaynu niri ganacsi ahaan shayga ugu muhiimsan waa xogta marka aragtida businesska uu leeyahay waxa waa inaad ogaatid customerkaaga waxa uu ku fakarayo intuusan fakarinba hadda dhowr maraad baartay baaristii wuxuu ka ogaaday waxa u baahan tahay laga yaabo in mar dhowr ku siiyay inaad mid kale ka doorato mission oo ah hadafka is the expert waa khubarada ama waa khabiirka in marketing suuqgeynta and sales alignment ama iibka iib toosin
and the mastering oo sayidi oo ah ama ka mas'uul ah of the messages wararka ama xogaha waa hadafka kaasoo khibrad ku siinaya suuqgeynta kuguna toosinaya dariiqa saxa oo aad warka ka helaysay kaasi waa missionka visionkan waxaan niri waa aragtidii oo ah qofkii wuxuu shirkadaada ama waxaad sameynaysay meesha aad doonaysid inay ahaado centric kaasoo ah customer waxa aad doonaysid waxay tahay inaad customerkaaga raali gelisid for any cost no matter what waxay doontaa kuu noqotay inuu customerkaagii oo wax kaa iibsaday uu kaa tago isagoo raali ah raalnimadiis maxay keenaysaa inuu mar iyo labo iyo saddex kuu soo noqdo ilaa uu noqdo loyal customer missionkana muxuu yahay waa hadafka kaasoo inay khibradda aad ka haysatid suuqgeynta taasoo kugu toosinaysa meelahaad ka heleed ama geyn lahayd wararka saxa ama qofka warkii saxa ka heli lahaa oo ah taa niri camal hadda iclaanku qofka fiirinayo ama sportsa gashay ama waxaana fiirisay already marka damaad furtid waxaa kugu soo baxay wixii leesh leeno mar iyo laba iyo saddexaad eegtay marka maadaama mar ka badan aad eegtay waa wixii waxaanaad ka heshaa qofka kusoo dirsado adiga aad rabtid يعني waxa waa interest ku tahay maadaama aad waxaan wax ka hesho u yahayna waa lagu fududeynaa leena waxa tahay customer to be inaad ka noqotid macmiil meesha marka adoo macmiil noqon wali noqoba soo dhaweynta lagu bilaabaya ilaa aad macmiil noqoto kadibna aad noqoto macmiil daacada oo isagiiba mush in isagii reerkaaga iyo dariskaaga iyo asxaabtaada aad hadhowna wada keento marka daacad noqoto oo aad ka heshid service kan ama khidmadan lagu siinayo ama badeecadan aad qaadanaysid marka aad ka hesho adaa waxa noqonaysid qof customer waara oo la jooga ganacsigaas intaan kusoo gabagabeynaa casharkeena maanta waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan waxaad su'aalo qabtaan down below the message ka nagu soo sheegi kartaan wixii more usii baahan clarification ama caddayn more diyaar in laydin caddeeyo la idin sharaxo aad u mahadsantiin meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh